daawanaysa ama gabar ku daawanaya ama qof ku daawanaya sidaad ugu sharxi lahayd sales and marketing like day to day-ga qofka sales ka shaqeynaya muxuu yahay like maxaad qabataa maalinta markaad soo toosto waaga uu kuu beriyo ilaa iyo habeenkii like jadwalkaaga maalinlaha siduu u eg yahay So sales iyo marketing waa wax oo different So sales hadaa ka hadleyno waa waxa la gadaayo So tech companies ka shaqey jira software aa gadayna So software-ka oo software waxaa ka saari kartaa anything wuxuu noqon karaa TikTok ama Facebook ama wuxuu noqon karaa program software wuxuu noqon karaa anything software wuxuu noqon karaa accountant hadaad tahay accountant software-ka isticmaalay sidaa software noqon karo So software-kaas aa la rabaa qof inaa ka gado So different waxaa jiraan wax oo different hal waxaa jira oo saleska kow ka bilaawaysid even sales wuxuu leeyahay different levels buu leeyahay levelka ugu koowaad waxaa waaye qofka oo la dhahayo SDR ama BDR sales development representative waxay yihiin dadka oo cold calling aa la dhahaa qabow dadka inaa iska wacdid iyakoo ka aqoonin inaa ka gatid oo meeting inaa bukaraysid marka labaad waxaa waaye marka account manager ama account executive dadka koowaad oo sales development appointment ay kuu sameeyayaan adigana clientka u tagaysaa and then waxaa jira midka koraya oo enterprise la dhahayo enterprise waxaa waaye big companies aa la shaqeeyoosa so halkaada deal oo sameeyaysid maybe 1 million 8 million waaye dealka close gareeyaysid so kuwaas waxaa la dhahaa enterprise execs so different levels waaye so kuwa ugu koowaad is very easy kuwaas meeshaasaa laga bilaabaa waxaa waaye telefoonkaa qabahaysaa emailaa dad u dhigaysaa appointmentsaa la rabaa inaad book garaysid so for example adiga haddaa accountant software rabtid inaad dadka gatid accountantsaa u tagaysaa so accountantkaa wacaysaa waxaad dhahaysaa hello accountant softwarea haystaa oo companygan aa ka shaqeeya accountancy softwarekaanaa gadaa ma rabtaa inaa iga gadasid appointment samey karaa inaa ku tusiyaara waa demo inaa bugareeya so kuwaas waxaa la dhahaa kuwa kow lagu bilaabayo so that's my day 60 to 70 qof aa maalinta wacaysaa and then kuwa kale waxaa la dhahaa account exec so kuwaas appointment yaashaas oo la bugareeyo aa la rabaa inay u tagaan ama inay close gareeyaan inay demos u sameeyaan and then inay la xiro oo la dhaho okay saan waa bisha halahanaa diibaysaa darara contractska inay sign gareeyaan and then kuwa ugu saddexaad kuwaas ika waxay la shaqeeyaan SDR laakiin ika dealyaashooda waa deal weyn maybe 6 bilood ilaa 1 year aa la rabaa inay la close gareeyaan because waxaa waaye 1 million ilaa 30 million deals so kuwaas is very different deal cyclekooda waxaa waaye inay ika u tagaan meeting sameeyaan CEOs ee la hadlaan so kuwaas a lot finance project managers aa la rabaa engineers aa la rabaa kuwaas waa dealyaal oo waaweyn but it's very waxaa waaye confidence le u baahan tahay maahan wax oo hard ina wax oo xoog badan lagu sameeyayo maahan laakiin mindsetkaada ina xoog lahaada waayo because waa tiring maalin kasta 6 qof wac oo ku dhahaan iga kac maraba inaa kula hadlo wax oo niyataada jebi karo waaye so maahan wax oo easy laakiin easy wuxuu ku yahay actionkaa sameeyaysid waa easy qof aa wacoosa it's not qof oo wax oo education badan u baahantay here's a script qofka wac appointment bukarey it's not something or difficult laakiin mindsetka iyo niyataada wuu jebi karaa haddaa qof strong ahid yeah so that's sales marketing aanu nimaanaa iyadana yeah marketing xataa wuu kala duwan yahay waxaa jira social media marketing like PR marketing waxaa jira brand marketing personal brand development so kuwaas waa very different but marketing haddaa u fiirisid waxaa waaye productkaadaa haysatid haddaa business tahay saa dad kale u horstaaji kartaa that's simply wuxuu yahay so online se u horstaaji kartaa billboardska se u horstaaji kartaa magaziinka la furaay se u geli kartaa wordska isticmaalaysid copywritingka maxaa waaye customerkaada yoo yahay languagekay customerkaada ku hadasho so customerkaada ku hadla maxaa waaye so waxaas waa marketingka waan gartay so muddadaa ka shaqeynaysa Silicon Valley iyo inta u dhexaysay goor markaad 28 jirtay waxaad ii sheegtay inaad hooyo noqotay oo adoo xaggaa u dhexey Mareykanka iyo Ingiriiska adoo u dhexey ayaa hooyo noqotay so decisionka aad gaartay muxuu ahaa decisionkaa gaaray wuxuu ahaay I think so kow waxa important igu ahaay waxaa waaye like mindsetkayga horta
oo hooyo aabe idihi jireen waxaa waaye cunugtaa dhashid you have to focus cunugkaad inaad ku focus garaysid waaye laakiin something never aniga oo even markaa u fiiriyo qofka aniga ahay as a person markaa isku fiiriyo noloshayda waxaa u baahanahay waa inaa shaqeeyo so dadka way kala duwan yihiin so waxaa xasuustaa markaa uur pregnantkaa noqday maxaa rabaa inaa sameeyo so waxaa ahay like stuck between maraba inaa guriga joogo maraba inaa saan u shaqeeyo because cunug yaristaa haysatid you can't 15 mar maalinta inaa ka tagtid oo 20 hours days inaa shaqaysid so markaas waxaa ku fikiray maxaa raba aniga inaa sameeyo guriga maa raba inaa joogo work from home job maa raadsaha like very important waxaa ahay laakiin at the time lacag badanaa save garaystay because lacag badanaa sameeyay so always waa ku fikiri business marataa inaa furatid markaas aniga husbandkayga la hadlo waxaa dhahay lacag kaa haystaa 1 year offer ahay because maternity aa leeyahay halkan sano waxaa isku tijaabiyaa business inaa sameeyo so saasoo ku imaada inaa business sameeyo because even aniga uur leh oo baby dalay ma fariisan karin ano dadka qaar waxay dhahayaan miska fariisatid oo adiga maxa samaynin but ma fariisan karin waxaa dhahay no like mindsetkayga always wuxuu yahay no wax inaa sameeyo waayo because important wax oo muhiim igu ah waxaa waaye aniga inaa gabartayda tusiyo waxaa rabtidaa samay kartaa so mindsetkayga always saas buu ahay later is 4 sano mise 5 sano at the time lii qabaa so everyone always waxay dhihi jirtay why are baby u dalaynin anigana waxaa haystaa vision I'm like no my vision is not complete maahan really waxaa rabaa director markaas managera ahay so own territory aa leeyahay waxaa rabaa director inaa noqdo and then VP inaa noqdo and then senior VP so waxaa rabaa inaa like £500,000 sanadka sameeyo and before that I don't want to look at that so qofka saxda waa waalan tahay like imaan like lacag badan aa samaystaa guriga iska joogi kartaa just relax I was like my so markaa pregnant markaa noqday wuxuu ahaa 2019 February 28 aa jira I'm like oh my god baby what do you mean baby ma dali kartid laati 8 sana jirtaa careerkayga waxaa dhahay wax ma samey kari baby aa haysta hata wallahi cabsi it was very scared feelingkayga aa haysta wuxuu ahay I was very scared wax oo cabsi badanaa igu jiray ma ahayn like wuu ahay alxamdulilah ilahay ay siiyay but at the same time cabsi badanaa igu jiray because waxaa ka fikiray maxaa sameeyaa now like guriga inta fariista ma television fariisaha acuudi bilahi waxba samey kari so yeah markaas feelingkayga wuxuu ahay cabsi 2019 markaa uurka lahaa when I first markaa ogaaday inaa uur leeyahay I was very scared so shaqadii waa resign garaysay ma resign garaynin maternity aa lasiiyey 1 year 1 year but before maternity isiiyeen waxay dhaheen dad badan lay off ku sameeyayaan redundancy ma rabtaa I was like oh redundancyga miska qaataa because off aan noqaha that means I don't have to inaan noqday okay aa dhahay waxay dhaheen yeah 40,000 aa ku siiyeena oo 50,000 tax free guriga iska joogi kartaa but like shaqadaan kusoo noqon karay and then I was like hadaa rabo actually shaqo kala ku laabo karaa aniga 9 years experience aa leeyahay every laba biri waxaa laysoo doorayaa message ma rabtaa inaa la shaqaysid so shaqo waa heli karaa hadaa rabo saasoo mindsetkayga ahay so lacagtaa qaatay guriga iska fadhiyay so now waxaa ahay like 8 months pregnant or something like this like 8 bilood camal ahay and then guriga fadhiyay and the first 2 weeks waxaa ahay amazing oh this is so nice actually guriga waa fadhi karaa wax barabi inaa sameeyo cuntadaada karso guriga waa soo kacaysaa 2 saac gurigaada is clean cuntada uu ku karsan yahay and then television is fiirsan kartaa Life's easy. Life's so easy so waxaa dhahay maybe saana sameeya maybe wax ma sameeyay waxaa haystaa 100 something thousand aa bangigayga ku jiro for 2 years 3 years I don't have to work lacag badan aa haystaa and then labada week markoo dhamaaday waxaa isdahay cabdi jaylaal waxaa isdahay waa waalan waya I can't do this anymore maalin kasta same routine I was like wallahi I don't think inaa samey karo maalin kasta the same routine inta fadhi waxa sameynin research aa bilaaway I'm pregnant by the way waxaa jira 8 months
maxaa sameeyaa e-commerce ma sameeyaa saan ma sameeyaa dirira and then mentora qaatay waxaa dhahay e-commerce aa baraha wax badanaa ka akhriye maybe like 2 week camal wax badanaa ka akhriye and then mentora raadsaday waxaa bilaabay drop shipping wax la dhahayo Shopify drop shipping aa ku bilaabay waan gartay and then had oh you know drop shipping is a lot of is so nice like wax yariisa ku sameeyaa like in the first maybe 3 ama 4 store lacag ma sameynin and store kayga shanaad waxaa arkay anigoo maybe 500 baan maalinta sameeyayo I was like 500 baan maalinta oh waxaan waa wax fiican and then store kala sameeyay wuxuu sameeyay maybe 1,000 baan maalinta I was like oh so drop shipping aa ku bilaaway anigoo fadhiyo really I'm still uraleeyahay 9 bilood ahay and then I remember husbandkayga ninkayga u tagay waxaa dhahay yeah I think inaa rabo clothing brand aa raba I think inaa sameeyo after like 3 shops markaa sameeyo he said ma waalan tahay adiga he goes you're 9 months pregnant what do you mean meel fariiso no stress stresska buu rabi and then I was like no I think inaa rabo inaa wax bilaawo like waa isku fiiriyaa wax badan side oo noqaha maahan wax energy badan iga qaadahayo blah 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 companygaas waa companyga oo almost $2 million ii sameeyay waa companyga oo very stressful ahay ko but I remember waxaa bilaabay companygaas anigoo uur leh 9 months camal uur lahay markaa koo bilaabay companygaas waan gartay so adigoo 9 months baad drop shipping bilowday 3 company baa kaa burburtay oo ku guuldarayso so how do you feel like marka intaan success loo gaday marka guuldarayso 3 store kaa burburin like how was you feeling like maxaa dareemaysa wallahi very sad because lacag badanaa kaa baxaysa maybe 10,000 camal aa igu barbaartay like oo wax ku fiiriyay products gadahay kan sameeyay so wax oo very sad ahay laakiin I think meel anigu ku fiicanahay is lacag value badan ma saaray at the time because always in my mind alhamdulillah waxa way lacag meel kale ka samey karaa so hadda igu baxo meel kale ka raadsaha so but very hard igu ahay wallahi mentality guys or failing is something oo dad badan das meesha ku joogsadaan because adiga isku fiiri hadda fiiri 5 mar ama 6 mar waxa daaf isku fiiri sidoo lacag badan ka baxay oo qofku dhahaysa may mar kale fiiri waxaa la dhahaa qofkaas way waalan tahay adiga waayo mar kale u fiiriyaysaa you know already inaa wax ku barbaasin ahayn so waxaa dhahay you know sad ahay laakiin it's okay so maxay 3 story ee ku guuldareysatay maxay iibin jirtay maxay ahaayeen like nishkooda muxuu ahaa oh hal xab wuxuu ahay boorsayaal hal xab wuxuu ahay like kids like ilmaha kabahooda kan kale wuxuu ahay nalalka oo guriyaashi iyo podcastyaasha iyo meesha isticmaalaan LED lights iyo waxaas oo ahay very wuxuu ahay wax oo different trending wuxuu ahay afiiri jiray Facebook ads samay jiray iyo Instagram ads waxa fiiriyaa marka ad library-yaasha research ku samay jiray waxa fiiri jiray wax trending wuxuu ahay and markaas waxa sagadi jiray so 3 niche marka ku guuldareysatay brand dharba clothes ba aaday so bal storekaas noogu waran like storekaasi iyo maalintaad aasaastay iyo waxaad ka samaysay 2 milyan oo dollar baa ka samaysay only that storekaas ka samaysay bal businesskaas noogu waran like markaad bilowday sidaad ku bilowday sidoo ku guuldareystay maalintii imisa ka sameyn jirtay like target audience-gaaga halkee ayuu joogeen day to day like inventory-ga alaabta xagee loo shiiban garay audience xagu u badnaa like bal noogu sharax storekan clothing-ka aad ku guuleysatay So storecast, well, very dramatic story. Okay, so excuse me. Okay, so story guys, waxa arkay meel online waxa ku arkay gabar oo la dhahayo Emma Greed. So Emma Greed waxa naag oo America degan oo gabdhaha oo Kardashian-ka iyo meelahaas business yaala sameysay. So waxay raadsi jirtay influencer yaal iyo gabdho oo famous iyadoo business woman waxay sii jirtay marka waxay dhahaysaa aniga ila partner garay and then business asla sameeyaysaa so audience-ka ay haysato waa anigoo adag ku imaado dhaha Cabdi Jalaal audience ay haysataa product ay haysataa asla noqona business partners aniga business-ka sameeya adigana marketing-ka ii sameey dadku u sheeg so either laakiin waxay samaysay 4 billion 5 billion pounds saas ku samaysay so hadda oh maybe aniga saas sameey karaa so waxaa raadiyay influencer oo UK degan oo audience fiican haysato oo dar gadi karto so influencer aa shaqeey gabar oo Nikita la dhahayo
oo 1 million followers haysato message u diray hi imaana lidaha business idea haysta ma akhani by the way email u diray just randomly ma rabtaa ina business ila samaysid and then way iso jawaabtay and she goes okay meeting asameeyana and then meeting asameeyna and then maybe 2 weeks later amal 2 week marka kabacdi business partners aan noqonay so hadda audience weyn aan haysta business plan aan haysta lacagna waa haysta I'm like oh fantastic so hadda business abilawa and then daraa gadi jiray like suwaalyaal iyo wax la dhahay jumpsuits iyo jumperyaashii waxaasaa gadi jiray kow markaa bilaawna even though audience haysana iyo waxaas wax badan ma samay jirnay maybe like 2,000 bishii 3,000 the first 2-3 months waxaa ahay very slow ahay and then markaas waxaa business plankayga aa change garay waxaa dhahay aa bedelay waxaa dhahay saan ma u shaqeeyoyo maxaa samay karnaa and then waxaa arkay markaa drops waxa la dhahayaa jiro drops waxaa waaya business haddaa haysatid marka hal mar wax release garaysid ma soo celiyaysid waxaas waxaa la dhahaa drops so waxaa oh maybe drops aa sameeyana meaning that hal mar aa collection u sameeyana dadka one time collection haddaa gadatid then ma soo noqohayo then dadka waxaa waaye waxaas urgency oo dadka create garayaan because imagine suwaala arkaysaa waxaas dhehaysaa suwaalkan waa rabaa laakiin beriyaa soo gadaha laakiin haddii lagu dhaho suwaalkan beri ma joogo then waxaad dhehaysaa hadda ina soo gato waaye so urgencygaas is marketing technique waaye oo fiican so dadka I always say to dadka saas camal wuu u fiican yahay haddaa samay kartid so drops aa samaynin dropska koowaad markaa samaynin waxaa arkay in 1 hour ina 10,000 baan samaynin waxaa dhaha oh this is working aa dhahay laakiin darba inventory badan ma haysanin because ma ogeyn anaka wax successful noqohayo so mar kalaa samaynay and then the second drop 30,000 baan oo sameeyay we're like okay mashallah this is good and then saas baa ku guulaysnay and then the third fourth markaas 150,000 saasaa ku sameynay so businesskaas laakiin the problem oo kale is waxaa noqday within maybe waxaa aragnay 8 to 12 months waxaa aadnay from 0 to 100,000 bishii it's too fast in waxa ma ahayn ecosystemka oo systemyaasha si fiican ma u set garaynin businesskeena financekeyga si fiican ma u set garaynin enough resources ma lahayn in terms of Facebook's ads aa la rabaa lacag inaad diibtid waxaa u baahan tahay darka inaad gatid waxaa u baahan tahay employeegaas lacagta inaad siisid so wax kasto wuxuu igu noqday wuu igu korsaarma camal too quickly oo noqday so markaa aadna maybe 160,000 waxaa aragnay 3 collection before ina gadatid camal waayo because waxaas dahay ma sugi kari 1 month ina dad dar haysanin and then the next month so before ina gadatid waayo so always collections ina haysatid and then waxaa arkay cash flowgeena is not good enough because haddaa rabtid 2-3 months ina hor u gadatid oo wax adigana employeegaada iyo waxaada lacagta siisid iyo facebooka diibtid ma haysatid enough cash flow so companygaas waa xirnay because too many wuxuu ahay problems oo haystay yeah 2.5 years baa 2 million ka samayseen and then waa xirteen waan gartay Yeah. then from here adiga hooyo baa noqotay maxaa ku xigay maxaa qaban jirtay marka so markaas businesskaas horta 150,000 oo baana iga baaba'ay oo lacagta iga duntay so waxaa dhahay oo kow inaa ka bilaawaayo because lacagteydan businesskaasaa geliya lacag ma ka qaadanin everyone lacagtooda waa siiyey and then aniga lacag ma ka qaadanin waa iska dhaafay because it just wasn't enough lacag left so markaas waxaa dhahay oo kow inaa ka bilaawaayo so maybe waxaa qaatay 3 bilood camal anigoo dhahay maxaa rabtaa inaa samaysid 3 bilood was a long time research badanaa sameeyey in between markaa data i message garay jira oo dhihi jireen consulting manoo samey kartaa brand consulting u baahanahnay sales consulting u baahanahnay so waxaa ka shaqey jira as contractor different companies oo maybe bil 2 bil 3 bil oo consulting u sameeyayo and then markaasa waxaa ka fikiray like I remember Shopify isticmaali jiray the problems that I can in Shopify waxaa dhahay this is too much problems and that's markaa ka fikiray company kala rabaa inaa sameeyo oo tech company but before that runtii I didn't think about it waxaa reflection badanaa sameeyay so mentorkayga waa nin oo America degan very rich wuxuu yahay billionaire wuxuu dhahayay waxaa soo qortaa
he goes waxaa soo qorta from beginning into kowga markaa companygan bilaabaysa ilaa sida u dhamaaday book camal usoo qoro dhahay. And then I was like, maxaa ka wadaa, why? It's so pointless, like I don't understand. He goes, no, waxaa la rabaa inaa ogaatid meesha oo, because waa wax oo xanuun badan runtii haddaa u fiirisid company oo aday 3 sano oo sameeyeysid lacagtaada gelisay oo wax badan kuu sameeyay, and then hadda lagu dhaho you know wax kale ma sameeyeysid, because ani waxaa isku dahay companygan wuxuu iga dhigaa qof taajir meel iska fariisaya wax ma sameeyeysid. So wuxuu dhahay qor, and then waxaa ogaada doontaa meesha ugu jecleed waxaa sameey jirtay, meesha ugu nacbeed, meesha oo problemkaada kuu imaatay, wax kasta. So maybe waxaa qaata like 2-3 weeks buukan usoo qoraaye, anigana the whole time aan qoraya waxaa dhahaa this is pointless, why waxaan u qoraya, you know, waxaa dhahay laakiin waa nin aqli badan, so maybe reason why waxa igu sheegayo. So buukaasa soo qoray waa u geeyay, and then wuxuu dhahay oh inta waxaa ka hadloosaa softwareska isticmaashay shopper monkey blah blah blah, waxaa ka hadloosaa tech markaa ka shaqeeyaysa kow inaa aad u jecleed, that's why aa rabtay inaa online business bilaawday, wiligaa ma ka fikirtay adiga inaa tech company furatay. I said mawaalan tahay, what do you mean aniga inaa tech company furto, like that's so much work. And then he goes wax work jirin, wax oo work ahayn ma jirto. Markaas waxaa dhahay you know how aa kasoo fikir, no wiligay ma ka fikirin runtii, waxaa dhahay no never ma ka fikirin, because waa qofku dhehaysa camal oh adiga wiligaa ma ka fikirta inaa I don't know car company like Tesla bilaawaysid. No ma ka fikirin, you know. So waxaa dhahay no ma ka fikirin. He goes markaa ka hadlaysid adiga technologyga iyo onlineka iyo marketingka iyo systemka, markaa website designka iyo waxaas se u qortay happy ku ahayd, waxaasaa jeclaa jirta product system saan. He goes so why adiga waxaas camal u design garayn qofka lagu samey kartid. And I was like because it's hard work. Berina sameeyo waa shaqo badan. And wuxuu dhahay no maybe something like oo ku jira, but runtii serious ma uu take garin. waxaa dhahay no waxaas serious maahan. And then wuxuu dhahay another thing aa jeceshahay waxaa waaye product design, so maybe company kale oo clothes aa fura kartaa. I said no ma rabi inaa clothes company mar kale furto. And then waxaa dhahay the next company aa sameeyo waxaa rabaa inuu $1 billion company noqdo. He goes good, that's good mentality. He goes so billion maxaa ku keeni karo. I was like I don't know, wili ma ka fikirin laakiin waa ka fikiri doonaa. And then waan noqday. And then he goes okay kasoo fikir waxaa rabtid inaa sameysid. And then maalin waxaa furay agency camala online ka furay marketing agency. And then waxaa isticmaalaya Squarespace company la dhahayo, website kaa design gareeyo. And I was like waxaan waa complicated, appyaal badana u baahan tahay saan la isticmaalayo. And then same problem waxaa lahaa Shopify, waxaa dhihi jiray because Shopify aa koo rabay inaa isticmaalo, waxaa no waa very complicated, ma rabay inaa koo ka bilaawo, waxaa rabaa simple one page oo 20 minutes igu qaadahay and that's it. Shopify isticmaalay, I couldn't do that. Wix isticmaalay, again wuxuu qaatay long time. WordPress, Squarespace. And waxaa dhahay maybe inta waxaa ka jira problem oo dadka kow markay wax ku bilaawayaan oo wax ka aqoonin inay website rabaan furaan se u furayaan because information dan ma lah badan. Markaasaa kasoo fikiray inaa rabo inaa aniga tech company bilaawo. And then again my husband aa u tago waxaa dhahay hey waxaa rabaa. He goes every 3 years something crazy you can't. He goes wali kasta adiga waa isku wax crazy you can't. I'm like I know like I think inaa samey karo. And then he goes okay. And then saas waa ku bilaaway. And he goes well qof aa u baahan tahay oo engineer waxaa u baahan tahay saan because ani engineering ma lehe, software engineer ma ihi. So markaas networkayga ninkan waa u noqday. waxaa u noqday dad kale u noqday. waxaa dhahay okay san. He goes oh data kula introduce garaya networkkaada, this is very important, this is why networkkaada very important u yahay because you know dadka aa lasoo business lasoo samaystay oo lasoo shaqaystay oo relationships la samaystay waa dadka hata la shaqeeya wili. Over the last 8 years dadkaa la shaqeeyayay different dad engineeryaasha DevOpska iyo dadkaas hadda businesskayga ila caawiyo, so way ila shaqeeyaan. waan gartay. So August of 2024 waxaad launch gareysay Shopimonkey oo ah e-commerce platform same oo sida Shopify camal iyo Wix space iyo bal noo sharax marka muxuu businesskaaga muxuu yahay. waxaad noo sharaxdaa qof aan garanayn camal waxaad u sharaxdaa Shopimonkey muxuu qabtaa, muxuu yahay, xitaa kaba soo qaad inaanan garanayn Shopify, inaanan garanayn Wix, like bal sharaxaad naga sii. waa business online ah ama platform e-commerce, bal qofkaan e-commerce xitaa fahmaynin sidaad ugu sharxi lahayd. Like that's a good question. So I remember this
hooyo ma karahaynin so hooyo saa ugu hooyo ugu sharcsan ugu sharcsan hay hooyo maxaa waxaan dhahay markaa isticmaalaysid computerkaada ama telefoonkaada oo rabtid wax inaad ka gadatid Amazon camal Amazon dad badan way gartaan ama online hadaartid inaa wax saartid waxaa u baahan tahay wax la dhahayo website waxaa waaye meel oo wax ku gadi kartid so waxaa ku gadi kartaa barfuunkaada oo shopka ku gatid footaa ka qaadi kartaa footada online aa geli kartaa and then waa gadi kartaa so waxay tahay hooyo xataa waxay tahay that's very good se loo sameeya waxaas but yeah that's basically wuxuu yahay waxaa waaye wax oo physical something aa haysatid rabtid inaa online gatid so dukaan magaalada kaaga furaa baad online u bedelaysaa so basically hay dukaan oo online ah dukaan oo online perfect waa dukaan oo online laakiin it's not anaka keena platformkayga wuxuu ku fiican yahay maahan le wax hadaartid inaa gatid also wuxuu haystaa booking system wax la dhahayo booking systemkaas dad oo services leh aa isticmaali karaan so haddaa for example meetings rabtid haddaa hairdresser haddaa tahay qof oo tin samaysid qof oo makeup samaysid qof oo gym haddaa haysatid camal websitekeena soo qori kartaa and then dadka way bugaraysan karaan bakhaar baad ka furan kartaa bakhaar ka furan kartaa exactly marka shopmanka waxaa waaye meel aan dukaan ka dhex furan kara hay dukaan ka dhex furan kartid so business haddaa haysatid or any business haddaa haysatid waa dukaanka businesska haysatid oo online geli kartid that's it any business ama dukaan oo alaab gato ama dukaan oo service gato travel agent camal haddaa tahay oo travel gatid ama hairdress qof oo tin samaysa haddaa tahay oo tin servicekaada gatid online aa ku samey kartaa yeah bal kaba marka mabalihiba dukaan malihi laakiin waxaan rabaa dukaan inaan samaysto oo onlineka alaab ku iibiyo bal taasna sharaxaad naga sii waxaad noo sharaxdaa marka bal Shopify siduu u shaqeeya iyo bal e-commerce okay let's go back e-commerce waa maxay siduu u shaqeeyaa e-commerce so commerce waxaa waaye commerce meaningka waxaa waaye ganacsi basically waxaa waaye wax la gadaayo commerce so e-ga la hor saarayo waa online halahaas le different so e-commerce waxaa waaye something oo online la geliyo waan gartay marka so that's the thing oo e-commerce waan gartay okay so marka noo sharax marka like aan isbarbar dhigna marka Shopify iyo waxay ku kala duwan yihiin Shopify ana Shopify baan isticmaalay I think I remember 2022 store baan ka furtay and then marka waxay u leeyahay subscription bill bixi markaan bixi waxaan u baahday more than 7 plugin baan u baahday qaar oo item soo push gareeya qaar payment gateway ga qaada like waa taqaano gansan bal maxay ku kala duwan yihiin like adiga business kaagan e-commerce kaagan store kaagan ka dhex furanay iyo Shopify maxay ku kala duwan yihiin qofka rabsa inuu ganacsi ka bilaabo xagu ka bilaabaya sideen alaab u helaya sideen alaab ugu dhex iibinaya so bal safarkaas nadulgey okay so the difference aku sheega and then waxa sheega si business loo bilaabo basically so waxaad aragtid ina the difference ogaatid between platform yaasha like Shopify, Wix and Square so Shopify is noogu dhow because one of that shop platform yaal badan ma jiraan oo wax ku gadi kartid so Shopify noogu dhow so Shopify hadda u fiirisid waxaa u baahan tahay appyaal badan oo integration ku sameeysid hadaartid wax inaad gatid so example waxaa hadaartid currency yaal badan inaad ku gatid so adiga waxaa haystaa companygaada wuxuu u baahan yahay inta waxaarta online company inoo inta u dirtid UK u dirtid US America Kenya Germany companyyaasha dan waxay u baahan yihiin currency yaal different so qof oo Germany hadday ka furto websitekaada inay arkaan Germanyga lacagtooda qof oo America hadday ka furto inay aragto US dollars saas camal appkaas oo isticmaalaysid waa app lacag ina plug in ku samaysid Shopify companygeena appyaal dan ma haystaan waa hal platform haddaa aragtid booking haddaa aragtid lacag la bedelayo haddaa aragtid payment gateway wax kasto is built in house and reasonka saas u sameyn waxaa waaye because qof markay business bilaawayso ma rabtid inaa
wax badan ku tuurtid oo dhahdid kana u baahan tahay kana confused ku noqonaysa so qofku waxaa rabnaa inay imaato website-kooda furto everything wuu u samaysan yahay domain-kaada waa ku connect garay kartaa host-kaada anakaa payment gateway-kaada is already waa ku connect garay kartaa hal meel inaa wax kasta ku samaysan kartid Shopify iyo meelaha kale laakiin waxay haystaan dad plugins inaa ku samaysidid ama expensive waaye ama qof la hadlaysid oo qof ku caawiyaysa ma jirto anaga xataa haysna qof oo customer success kula caawiyayo oo ku caawiyayo si website-kaada u furatid business advice ku siiyayo waxaas dan company-gan waa isticmaalaan because reasonka company-gan u sameeyay is because waxaa xasuustaa marka aniga Shopify furahay wax ma ogeen aniga online wax kasta ku bartay dad lacag badan siiyay mentoryaashayda u kowaad maybe 3-4-5 kuna ku baabi'iyay because inta se u connect gareeya hadaa raba dropshipping inaa sameeyo se AliExpress ku connect gareeya kan se u sameeya kan all of that stuff lacag badanna ani ku diibay so aniga wuxuu ahay reasonka oo importance customer service-ka noo ahay iyo importance inaa easy ka digno wax kasta in one place ka digno without platform pluginska because aniga ku struggle garay waxa dhahay wax ma kala aqaani runtii mistake waxa ku sameey kartaa inaa 3 plugin samaysid for 1 year iska diibaysid 200 baan amal extra diibaysid and then maybe ma u baahnid xataa so that for me aniga wuxuu ahay frustration oo aniga arkay oo markaas dhahay no waxa rabaa wax ka fiican inaan sameeyo so that's marka waxaad samayseen Shopping Monkey waa marka qof markuu soo gala bal sidoo u bilaabi kara marka business qofka muxuu sameeyay isku dhex iibin karaa integration like dropshipping marka laga hadlayo hada Alibaba baad u baahan tahay AliExpress I mean like si alaabta loo geeyo oo bakhaarada bal qofka halkan store-ka furta magaciisa iyo loogadiisa everything geliya bal agab sida loo gadaa sida wax loogu dhex gadi karaa bal hadii halkaas sidoo kale dadku like qof aan garanaynin oo u sharaxdo so kaba soo qaad inaan surwaalada rabo inaan ku gado ama saacadaha baan rabaa inaan iibiyo store baan dhistay so sida loo sameeyo in general okay so how to start a business okay so businesska markaa bilaabaysid waxaa u baahan tahay it depends businesska way kala saaran yihiin waxaa la dhahaa wax oo service based business la dhahayo iyo wax oo product based business la dhahayo product based business waxaa waaye wax agadoosa like wax oo ama dar ama